madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu saakay oo axadda uu ka dalbaday dowladaha reer galbeedka in ay kordhiyaan shixnadaha hubka ee la siinayo waddankaasi Ukraine. waa laga maarmaan ayuu yidhi in la difaaco xorriyadda Yurub. waxa uu ku eedeeyey Britain Ruushka in ay bartilmaameysanayso deegaanada ay ku nool yihiin dadka rayidka. xukuumadda Washington waxa ay iyadu ay soo rogaysa ayaa la yidhi cunaqabateyn ka dhana in ka badan 470 shakhsiyadood, waxaana ku jira ayaa la yidhi ilaa iyo 196 baadari oo ku nool waddankaasi Ruushka. dowladda waddankaasi Britain ayaa ciidamada Ruushka waxa ay ku eedeysay in ay bartilmaameysanayaan meelo gabaad ay ka dhiganayaan dad rayida waddankaasi Ukraine. waxa ay dowladdu ay sheegtay in duqeynta cirka ee Ruushka ay tahay mid laga baqdin qaba ayaa la yidhi in lagu bartilmaameysado meelaha gabaadka ay ka dhiganayaan dadka rayidka. dowladda waddanka Ukraine saakay waxa ay shaacay ka qaaday in la burburiyey ama la soo riday diyuurad nooca qumaatiga u kacda helikobterka loo yaqaano iyo 12 diyuuradood oo drones ah, waxaana la tilmaamay in ay sii kordhayaan isticmaalka diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee waxyaabaha qarxa ay ku xiran yihiin oo ay dowladda Ruushka ay u adeegsanayso duulaanka waddankaasi Ukraine. dacwadoogaha waddankaasi Ukraine ayaa saacado ka hor waxa uu bartiisa Facebook uu ku soo qoray in 12 wariye la dilay 10 kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo markii uu bilowday colaadda waddankaasi Ukraine. ciidamada cirka ee dalkaasi Ukraine war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in iyagu ay wadaan dhabarjabka iyo sidoo kale khasaaraha ay u geysanayaan diyuuradaha iyagu ka qayb qaadanaya ee noocyadoodu ay kala duwan tahay dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. waxaa laga hortagay ilaa 5 gantaal oo kuwa cruise-ka ah oo ay dowladda Ruushka ay doonaysay inay la bartilmaameysato saldhigyada ciidamada waddankaasi Ukraine. ciidamada cirka ee dalka Ukraine waxa ay sheegeen in ciidamada Ruushka ay si aad isugu dayayaan in ay difaacyadooda ay ku burburiyaan diyuurada aan duuliyo lahayn oo lagu soo xiray waxyaabaha qarxa. 6 gantaal oo loo waday magaalada Lviv ayaa laga hortagay. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ka duulayay 10 daqiiqo inta aysan ku bilaaban gantaaladaasi. wasaaradda difaaca Britain barteeda Twitter-ka waxa ay ku soo daabacday in duqeynta dhinaca cirka iyo gantaalada dowladda Ruushka ay yihiin kuwo sahlan oo lagu bartilmaameysanayo dadka rayidka ee waddankaasi Ukraine. dowladda Ruushka waxaa lagu eedeeyey in ay sii wado in ay dadka meelaha gabaadka ay ka dhiganayaan ay si ula kac ah ay u bartilmaameysanayso. madaxweynaha Ukraine waxaa laga soo warinayaa inuu ka dalbaday dowladaha galbeedka inay iyagu ay sii kordhiyaan shixnadaha hubka ee ay siinayaan dowladiisa. Ukraine waxa ay dalbatay dabaabadaha dagaalka iyo sidoo kale nidaamka heer difaac ee looga hortegayo ayaa la yidhi gantaalada laga soo tuurayo dhinaca badda. Ukraine uma baahna 100% ayuu yidhi diyuuradaha gaashaanbuurta NATO ama 100% dabaabadaha, balse waxa ay u baahan tahay in ka badan intaasi. waxaan dalbanayno waxa ku xiran ayuu yidhi xorriyadda dalkaasi Ukraine iyo sidoo kale xorriyadda gabi ahaanba wadamada Yurub. saaxiibadaydu waxaan ka dalbanayaa ayuu yidhi in ay taageero degdeg ah ay la soo gaaraan waddankaasi Ukraine. ammaanka dalkaasi Ukraine uu ku xiran yahay amniga guud ee wadamada Yurub. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Liz Truss ayaa waxa ay wareysi ay siisay jaridada Telegraph ay ku sheegtay in cunaqabateennadu ay noqon doonaan kuwo lagu sii xanuunjiyo madaxweyne Putin haddii uusan ka laaban go-aankiisa in ciidamadiisa dib ugala bixin waddankaasi Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Britain waxay qabanqaabinaysaa ayaa la yidhi wadaxaajood nabad ah oo mustaqbalka ah sidii loo soo afmeeri lahaa colaadda ka taagan waddankaasi Ukraine. hadalkeedii iyo wareysiga ay siisay Telegraph waxa inta ay ku dartay in bangiyada iyo sidoo kale kooxaha ganacsatada hantida leh ee waddankaasi Ruushka inay noqon doonaan kuwo lala bartilmaameysado ayaa la yidhi cunaqabateynta ilaa iyo laga joojiyo xabadda ka dhacaysa waddankaasi Ukraine. markaasi ay suurtagal ay noqon doonto in xayiraad laga qaado. dowladda Mareykanka wasaaraddeedii arrimaha dibaddana waxa ay shaacay ka qaaday inay sii wadi doonto taageerada militari la siinayo dalkaasi Ukraine. waxaa la siiyey dowladda waddankaasi Ukraine taageero militari oo ku kacaya 1.36 bilyan oo dollarka Mareykanka ah
bil gudaheeda dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. dowladda Mareykanka waxa ay shaaci ka qaaday in ay sii wadi doonto taageerada ay siinayso dowladda waddankaasi Ukraine. madaxweynaha waddanka Mareykanka ayaa waxa uu horey ugu eedeeyay madaxweynaha waddankaasi Ruushka in uu yahay nin dad qalata ah, maadaama uu ku tilmaamayo hadda in uu yahay ciidamadiisu kuwa bartilmaamaysanaya dadka rayidka. dhinaca kale, magaalooyin dhowr ah oo ku yaala wadamada caalamkana waxaa laga dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo duulaanka dowladda Ruushka ay ku qaaday waddankaasi Ukraine, waxaana lagu cambaareynayay madaxweyne Vladimir Putin. caasimada Britain ee London oo ay ka dhacday mid ka mid a dibadbaxyadii ugu waaweynaa ee sanadkan ayaa waxa ay dadku ay wateen boorar ka dhan ah madaxweynaha waddanka Ruushka iyo ciidamadiisa oo lagu dalbanaya ayaa layidhi Putin in ciidamada uu ka soo saaro waddanka Ukraine. sidoo kale meelaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah New York, Tokyo, Czech caasimadeedii. sidoo kale waxaa lagu dalbanaya ayaa layidhi joojinta faragelinta military Ruushka uu ku sameeyey waddankaasi Ukraine. bil ayaa ka soo wareegtay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. kumanaan qofna waxay isugu soo baxeen magaalada London iyaga oo cambaareynaya ayaa layidhi duulaankaasi. dibadbaxyadii ka dhacay London waxaa horboodayay gudoomiyaha magaalada London Sadiq Khan, kaasi oo la tilmaamay si isluubaysan in dibadbaxyada uu soo abaabulay, waxaana ka qayb galay dad qaxooti ah oo iyagu isaga cararay waddankaasi Ukraine. dibadbaxyadaasi waxa ay wateen calanka waddanka Ukraine, waxa ay ka jawaabayeen ayaa layidhi baaqi madaxweynaha dalka Ukraine ee toddobaadkii hore uu jeediyey, kaasi oo ahaa in la dhigo dibadbaxyo ay shucuubta caalamka ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. sidoo kale waxaa jirta ayaa layidhi in uu dhinaca afka uu ku weeraray gobernatoraha magaalada London Sadiq Khan madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin, waxaana ugu baaqay in uu joojiyo cadowtinimada uu hayo dowladda waddankaasi Ukraine.